Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada channelka Somali Infantis. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qiso aad u xiiso badan oo ku saabsan nin oo Ilaahay lacag iyo caafimaad iyo awlaad isugu daray haddana ku kufriyay sababna jannada ku galay. Waxaa jiray nin reer bani Israa'iil ah oo Ilaahay dhaqaale siiyay oo qani ah, laakiin wuxuu ahaa musrif, naftiisana uma fiicneen. Caasi buu ahaa, waa loo nimceeyay, awlaad buu Ilaahay siiyay, arsaaqad buu Ilaahay siiyay, caafimaad buu Ilaahay siiyay. Sidaas darteed caasi buu ahaa, laakiin sifo cajiib buu lahaa. Sifadiisuna waxay ahayd dadka ayuu lacagtiisii amaahin jiray, kii soo celiyay xilligii lagu ballamana uu ka qaadan jiray, kii ballantiina kordhi dhahana uu u kordhi jiray, kan dhahana ma keeni karana wuu ka cafin jiray. Maalinta uu dhimanayay ayuu inamadiisii u yeeray kuna yiri, anigu Ilaahay waa ii nimceeyay, laakiin nicmadiisii waan ku kufriyay. Waxaan Ilaahay la hortaga oo khayr ah anigu ma haysto, ee dadka sidaan aniga ula tacaamuli jiray ula tacaamula. Lacagta deymiya kan xilliga lagu ballamay keenana ka qaata, kan waqtiga ii kordhi dhahana u kordhiya, kan aan awoodina iska cafiya. Maalinta uu dhintay ayaa ninkii Ilaahay hortiisa la joojiyay. Ilaahay baa ku yiri, soo saara ii keena adoonkaas. Markaas ayaa Ilaahay ku yiri, adoonkan u nimceeyay ma tihid? Haa, waan ahay. Maxaad la timid hortayda oo maanta ku yaala? Waxba, daalim baan ahay, faasiq baan ahay, musrif baan ahay, caasi baan ahay. Markaas Ilaahay Jalla wa Calaa ku yiri, miyaadan ahayn adoonkaygii addoomadeeda deyminayay oo sida wanaagsan ula tacaamulayay? Haa, waan ahay. Adoonkaygii miyaadan ahayn maalinkuu soo dhimanayay wiilashiisii kala dardaarmay ee yiri, kan deynka soo celiya ka qaata, kan waqtiga dalbadana ugu dara, kan aan awoodina iska cafiya. Adoonkii ilmihiisa sidaas kula dardaarmay miyaadan ahayn? Haa, waan ahay. Anna waan ku cafiyay jannada kale. Qisadan ayaa waxayna tusaysaa inuu Ilaahay Jalla wa Calaa uu yahay mid naxariis badan, raxmadiisana aan laga quusan, oo quraankiisiina ku yiri, laa taqnituu min raxmatillaah. Ilaahay raxmadiisa lagama quusto, mar walbana gacmaha ayaa loo hooriyaa. Ilaahu noo naxariiso ee jannadaadana nage. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan nagu soo biir haddaad nagu cusub tahay oo subscribe saar, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalka dambe aan soo dhigi doono.